ma rabtaa inaad AI ku samayso muuqaalada noocan oo kale ah. السلام عليكم دمان dadka Soomaaliyeed ku soo dhawaada muuqaalkan maanta waxaan idin haynaa xog iyo waxyaabo aad u xiiso badan oo ku saabsan tiknoolajiyada cusub muuqaalada noocan oo kale ah waxa lagu sameeyaa VO3 wuxuu ku ogolaanayaa inaad fikirkaaga u bedesho muuqaal cajiib ah aan wada aragna sida loo sameeyo. Okay, marka ugu horeyso waxaan soo furanaynaa Play Store-ka. Waxaanu soo degsanaynaa waxa la yiraahdo Fellow. kadibna Google Fellow-gaas ayaan soo degsanaynaa. waxaa jira laba nooc isagoo website ah iyo taleefanka ba ku samaysan kartaa, laakiin hadda waxaan idin tusayaa sida taleefanka ama application-kan dhexdiisa loogu sameeyo muuqaalada VO3-ga. app-ka inoo soo degay, haddana waxaan soo dejinaynaa waxa la yiraahdo VPN ayaan soo degsanaynaa. VPN-ka ugu fiican oo free ah waxaan soo degsanaynaa VPN la yiraahdo Super VPN. VPN fiican oo in badan aan isticmaalo. waxaan soo degsatay 100 milyan sida halka kaaga muuqataba. VPN-kaas ayaan soo degsanaynaa. waa tahay VPN-ka marka waa inoo soo degay, sidoo kale app-kan waa inoo soo degay. abaskii marka waxaan soo degsanay Super VPN, sidoo kale waxaan soo degsanay Fellow, Google Fellow ayaan soo degsanay. waxaan ku hormaraynaa markaa sida loo sameeyo mid kamid ah muuqaala ayaan samayn doonaa. si aan u sameeyna marka ugu horeyso horta waxaan soo furanaynaa VPN-ka, Super VPN-ka ayaan soo furaynaa. oo ogolaaw marka VPN-ka ayaa la diyaarinaya hadirtaan. Continue ayaan leeyahay. kadib waxaa leedahay connect si lagu xiro waxa la yiraahdo VPN-ka. sida halkan kaaga muuqata connected ayaa la waa lagu soo xiray. hadirtaan marka waxaan soo furan doonaa waxa la yiraahdo Google Fellow-gii ayaan soo furaynaa. sida halkan kaaga muuqata Google Fellow waa kan application-kii ayaan soo furaynaa marka. waa kan application-ka projectyadii hore u diyaarisay Gmail-kaaga ayaa kugu jira Gmail-ada. diyaaritid inaad log out aad tiraadid waad ka bixi kartaa. okay, marka maalin kasta waxaa ku siinayaa content credit ayaa lagu siinayaa. haddii contentkaas credit ay kaa dhamaato Gmail kala isticmaal. haddaan bedelno sidii loo bedelanayo sign out aa leedahay keliya, kadib create, kadib waxaad ku dhufanaysaa sidaas. Gmail credit ayaa saas ku bedeli kartaa. get started. okay, si aan u bedelno marka horta koow waxaan soo qaadanaynaa promptiga waxaan ka soo qaadan doonaa ChatGPT. tusaale kale waxaan leenahay ChatGPT aan ka soo qaadan doonaa promptiga. waxaan leenahay noo diyaari prompt. sidaasaan ku dirnay. marka waxaa laga rabaa ChatGPT asaga ayaa qori doona waxa la yiraahdo wixii uu ku hadli lahaa oo luqadda Soomaaliga ah. adiga waxaa laga doonayaa marka wixii markaas uu qaldo oo Soomaaliga ah inaad ka bedeshid oo aad ku bedeshid. waxaad ogaataa mar kasta oo aad qoraysid wax aad dhehaysid oo qofkaas aad rabtid inuu dhaho mar kastaba waxaad gelisaa waxa la yiraahdo double quotation geli. okay, kana soo koobiyeynaa marka kadib waxaanu tagaynaa waxa la yiraahdo Google Fellow-gii. okay, ChatGPT ayaan ka soo koobiyeynay promptigii. kadib waxaan leenahay halkan ayaan ku paste gareynaynaa. waxaan leenahay paste. halkan sida kaaga muuqato waxaa inoo yaala image-kaas waan ka bedelaynaa. image-ka wax credit kaaga mudan waxaan ka dhiganaa video. haddii TikTok aad uritid halkaas ku yaala, ama haddii YouTube aad uritid saas aad ka dhiganaysaa. waxaan isticmaalaynaa midka Omni Flash uma baahni. VO 3.1 Lite ayaan isticmaalaynaa maadaama asaga uu credit yar yahay oo 10 credit kaliya uu yahay. kaas ayaan isticmaali doonaa. haddii ChatGPT-ga promptiga uu wax ka qalday oo Soomaaliga ku qaldayna waxbaan ka bedeli doonaa. assalaamu calaykum ayuu dhahay. assalaamu calaykum oo c ayuu qoray. intaasna fahmi doona asaga. abbreviation dhan erayada la soo gaabin fahmaayo, sida darteed waan dheerayn doonaa. waxaan leenahay assalaamu calaykum. assalaamu calaykum dhammaan
dadka Soomaaliyeed ku soo dhawaada muuqaalkan. Maanta waxaan idin haynaa xog iyo waxyaabo aad u xiiso badan oo ku saabsan tiknoolajiyadda cusub. Okay, intaasaan ku joojinaynaa maadaama hal 8 ilbiriqsi wey. 8 ilbiriqsi intaas ka badan muuqaalka kuma dhigi karo. Haddii aad ka badisid qalad ayaa ka imaan kara, marka halkaas ku jooji. Okay, sidaas aan u dirnay kadib waxaanu leenahay generate. Muuqaalkii waa la diyaariyey si halkan kaaga muuqata. Haddaba aynu ku dhufanno sida uu diyaariyey. السلام عليكم دمان dadka Soomaaliyeed ku soo dhawaada muuqaalkan maanta waxaan idin haynaa xog iyo waxyaabo aad u xiiso badan oo ku saabsan tiknoolajiyadda cusub. السلام عليكم dhammaan dadka Soomaaliyeed ku soo dhawaada sida halkan ku ujeedid muuqaal qurux badan ayaa la diyaariyey, weliba nin Soomaaliyeed oo weliba fadhiya studio qurux badan, aad u qurux badan. Muuqaalkan oo kale daarta xaysiin ma ku samayn kartaa, wax kale aad samayn kartaa, daarta riwaayado ama musalsal dheer aad ka samayn kartaa. Marka aad muuqaalada inaad isku xirtidna screenshot ka qaad, kadibna sawirka ku dir, kadibna isla promptiga scenes u kala qaybi qayb sidaas ayaad wax badan ku samayn kartaa. Si aad muuqaalkan inaad la soo degto daartid, si aad ula soo degto saddexdaas dhibic kore dooro, kadib waxaad leedahay in kaliya download, kadibna waxaad ku dhufataa download. muuqaalkaasi sidaas ayuu kugu soo degayaa oo galeriga ayuu sidaas kugu galayaa. Intaa in ka badan si aad u heshid fadlan subscribe saar channelka.